السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada barnaamijkeena saddexaad oo ku saabsan wacyigelin cudurka corona ah waxaa idin soo diyaariyey ururka dhaqaatiirta ee Filan Asasalu magacaygu waxaa waaye Faisal Jaamac waxaana ka mid ahaa dhaqaatiirta oo ka mid ah ururka Asasalu oo maantana waxaan ka hadlaynaa talaalada bismillah waxaa maanta marti noogu ah Dr. Maxamed Guuleed. السلام عليكم دكتور محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيصل. حالتك ورسمي في عندنا. الحمد لله في عنا ما شاء الله. مركا maxay ahayd brother meeshaan waxaa taalo maxay ahayd su'aalo badan oo dadweynaha Soomaaliyeed ay soo gudbiyeen oo ka mid ah maxay ahayd inaad wax yar faahfaahin naga siisid talaalada guud ahaan waxtarkeedu muxuu yahay iyo maxay ahayd maxaa dhacay oo iska talaalaa بسم الله فيصل adigi iyo ururka dhaqaatiirta waa mahadsantihiin runtii waxa waaye mowduuc aad muhiim u leh talaalka waqtigan hadda la joogo khaasatan talaalka sidiisaba wax cusub maahan oo ilaa 100 sano ku dhawaad wax jira waaye muhiimad badanna leh caafimaadka iyo horumarka caafimaadka cudurro badan oo dadka dhibaateyn jiray khaasatan caruurta wax badan ka taray qaar loo dhiman jiray wax badan runtii ka taray qaarkoodna cuduradaas cirib tiray marka talaalka sidiisaba waa wax maaragtay markii la fiiriyo taariikhda caafimaadka waxyaalaha waxaa lagu tiriyaa ugu muhiimsan in soo kordheen talaalka sideedaba wuxuu ku salaysan yahay in la isbaro cudurkaas mise viruskaas markaas rabo in laga talaalo qofka iyo difaaca qofkaas uu leeyahay difaaca jirka waa process aad maaragtay complex u ah laakiin haddii aan si fudud aan u sheego badanaa wuxuu ka kooban yahay laba qaybood ama laba saf safna waa safka hore oo first line defense ah oo wax walba marka jirka soo weeraro la falgalayo difaacayo waxay ahaadaan qaybna waa qayb dambe oo xusuus reebayso markii koowaad uu viruska soo weeraro jirka xusuus ayaa jirka samaysanaa difaaca jirka ayuu samaysanaa xusuustaas marka waxay ka caawinaysaa in marka dambe uu viruskaas uu jirka markale soo weeraro in isla markiiba laga hortagi karo uusan gaarin xaalad uu cudurkii ku sameeyo marka talaalka viruska ama viruskii oo dhan ha ahaado oo laga saaray wixii xanuunkii dhalinayay ama qayb ka mid ah viruska ahaado ayaa waxaa la barayaa jirka difaaca jirka si uu xusuus u samaysto kadib markii viruskaas uu soo weeraro xusuustaas ayuu isticmaalayaa horena uu kaga difaacaya marka asal ahaan saas ayuu ku salaysan yahay dabcan teknolojiyada la isticmaalo iyo qaababka viruska ama qaybta viruska jirka loo geliyo wixii isbedelay oo maaragtay horumar lagu sameeyey laakiin asal ahaan waa saas muhiimadda uu leeyahayna dee waxa waaye saan sheegnay cudurro badan oo dadka dhibaato ku hayay in ama la cirib tiray ama maaragtay saameyntooda aad iyo aad loo yahay okay masha allah maxay ahayd waxaa u gudbaynaa su-aasha labaad marka hadda waxaa marxaladda oo hadda aan ku jirno waa og tahay oo maxay ahayd maantay waxaa su-aasha taal waxaa waaye oo meeshaan iskula soo fadhiisanay talaalka viruska COVID-19
hore maxaa waaye faa'iidu leeyahana maxay tahay talaalka COVID-19 horta wuxuu la soo kulmay waqti teknolojiyadana ay aad u horumartay aqoonta loo leeyahay cilmiga virusyadana uu aad iyo aad u horumaray markii uu cudurka dilaacay waqti badan maysan qaadan in la ogaado viruska noocu yahay haddana waqti badan maysan qaadanin in geneticskiisa la qeexo marka horena waa laga ogaa in virus noocan oo kalete si kaleeto aanan looga hortegi karin ama saameyntiis lagu yareyn karin ilaa talaal laga helo marka isla markiiba waxaa la bilaabay in talaalka la raadiyo marka talaalka sida loo sameyn lahaa iyo sida maaragtay talaalada markii la sameynayo waxa ugu muhiimsan waxa waaye in horta horeeto maxaa la isticmaalaa talaalkii maxaa viruska dhanaa la isticmaalaa ma qayb ka mid ah la isticmaalaa midda labaadoo ka muhiimsana waxay tahay sidee maaragtay jirka bini'aadanka lagu gelinayaa si maaragtay difaaci loo tuso marka teknolojiyada hadda ayaa wax badan sahashay in si dhaqsi leh loo su'aalahaas looga jawaabo faa'iidadu leeyahayna waa dee faa'iidadan ka soo hadalnay oo ah in maaragtay muxuu ahaa wuxuu kala siman yahay talaalada kaleeto in laba wax ayaa muhiim ah inta badan talaalka laga leeyahay laba ujeedada koowaad waxa waaye in cudurkii viruskaas uu sameynayay in uusan qofkaas ku dhalinin taas waa midda labaad oo uu leeyahayna waxa waaye in cudurkii mise viruskii uusan sii faafin oo bulshadii inteeda kale uusan ku sii faafin maasha allah marka maxay ahayd haddaa u gudubno su-aasha saddexaad waxaa su-aal ay ka timaaday oo ku saabsan jadwalka oo talaalada loo sameeyo dadaa waxay aaminsan yihiin in aan soo saaristeeda lagu degdegay oo maxay ahayd oo bahasha hal mar ay lasoo saaray oo baroobo inay ka tahay dadka iyo waxaan aaminsan marka maxay su-aasha jirta marka waxaa waaye maxaa keenay in sida dhaqsi talaalkan oo lagu soo saaray mase dhaqsi miyaa صح ورنتي وماركتي محوها سؤال dadka isku weydiiyaan oo meel kasto mediaha social mediaha meel badan runtii laga arko waana su'aal muhiim ah dabcan waana wax cusub in maaragtay badana talaalka soo saardiisa waa 10 sano 15 sano ayuu qaadan jiray hada laakiin sanad gudaheeda ayaa lagu soo saaray talaalka marka dabcan way fiican tahay in maaragtay su'aal ay ka timaado haddaan ku laabto jawaabteedii hore macnaha technology-ga hadda waqtigan casriga la gaaray ayaa inta badan suurto gelisay in talaalkan si dhaqsi lagu soo saaro saddex hadda talaal ayaa saddex shirkadood ayaa saddex talaal soo saartay intaan hadda ognahay saddexda shirkadood waxay sameeyeen marka habraac waxaa jiro oo qofka talaalka markii mise daawo ha ahaado mise talaal ha ahaado habraac waxaa jiro oo sharci ah in ay raacaan shirkadahan sameynaya daawada ama talaalka oo badana saddex qayb ah qaybta koowaad qaybta labaad iyo qaybta saddexaad qaybta koowaad iyo qaybta labaad labadana waxay la xiriiraan in daawadii talaalkii maaragtay meel laboratory ah iyo lagu sameeyo qaybta saddexaad laakiin waa in lagu baroobeeyaa cadad dad ah oo inta badan volunteer ah oo maaragtay markaas la record gareeyaa faa'iidada laga helay dhibaatada ka imaaday in ay tahay maaragtay safe iyo waxyaalaha la mid ah markii intaas uu soo maro kadib ayaa waxaa loo gudbiyaa marka hay'adaha u qaabilsan in ay la socdaan waxyaalahan hay'adihi marka hay'adaha dabcan waxay leeyihiin dad expert ah dad ku takhasusay
maaragtay badanaana waxaa shuruud ah in dadkan ay wax xiriir ah kala dhexaynin shirkadaha daawooyinka sameeyo ama tallaalada sameeyo. marka iyagiyaa haddana dib datadii iyo qoraalladii ay soo gudbiyeen dib ayay u eegayaan. haddii marka wixii ay la noqoto in waxaan sax yihiin oo la hubiyo in aysan maaragtay faa'iidada iyo dhibaatada markii la isku barbaro inay faa'iidada ka badan tahay, kadibna waxaa la siinayaa shahaado in maaragtay la isticmaali karo. marka qaar shahaadada ayaa dhowr nooc kale ah. shahaado si emergency ahaan loo isticmaali karo, shahaado in si guud ahaan loo isticmaali karo, shahaado si limited ah, group limited macnaha group xadidan oo kale looga isticmaali karo iyo wixii la mid ah. marka shirkadahan hadda saddexda ah marka hore waxay codsadeen si emergency inay loo isticmaali karo. tii emergency ayaa la aqbalay marka hore, kadibna waxaa codsadeen in maaragtay la isticmaali karo, tiina way heleen. hal mar waxaan rabaa inaan marka aan ka dhaho saddexda tallaal oo hadda jirto waxyaalaha ay ku salaysan yihiin. waxay ku salaysan yihiin horta hore saddexdoodaba laba ka mid ah waxay ku salaysan yihiin waxa la dhaho RNA, messenger RNA. midda saddexaadna waxay ku salaysan tahay DNA. messenger RNA-ga macnaha waa unugyada ugu yaryar oo maaragtay jirka. marka labada Pfizer BioNTech midda la dhaho oo midda hadda laga isticmaalayo Finland iyo adduunka inteeda badan, iyo midda Moderna la dhaho, labadooda mRNA-gaas waxa ay ku salaysan yihiin. mRNA-ga waxaa laga soo qaaday marka waa aragteen COVID viruska siduu u egyahay, wuxuu leeyahay gana ayuu leeyahay. ganahaas waa borotiino, waa ganahaas borotiin ka mid ah ganahaas ayaa laga soo qaaday. particle yar oo xamuul camal ah ayaa lagu dhex riday. xamuulkaas ayaa maaragtay qofka waxa lagu duraya taas waaye. kadib soo u soo socdo wuxuu xamuulkaas sahlayaa in unugga bini'aadanka uu gudaha u galo. markuu gudaha u galana wuxuu sii daynayaa borotiinka mRNA-gaas yar uu siday oo viruskii gantiisii laga soo qaaday. mRNA-gaas marka wuxuu samaynayaa jirka macnaha qofka bini'aadanka unuggiisa wuxuu leeyahay mashiino oo maaragtay akhriyo mRNA-gaas. mashiinadii ayaa akhrinayo oo macnaha si dabiici ah markay akhriyaan borotiinkii ayaa markaas la samaynayaa. borotiinka markii la sameeyo borotiinkii unuggii ka soo baxaya wuxuu soo gelayaa dhiiggii soo gelaya. dhiiggii markuu soo gala marka maxaa arkayo borotiinadii difaaca ayaa arkayo. sidaas ayaa marka waxaa isku arkayo borotiinkii laga soo qaaday viruska iyo borotiinadii oo jirka difaaca. marka kadibna xusuus ayuu maaragtay samaynayaa. taas waa labadaas way. midda soo hartay oo AstraZeneca oo Oxford oo tan waxa waaye UK ay samaysay, iyada wax yar way ka duwan tahay. DNA-ga ayay ku salaysan tahay. virus adenovirus ayaa isaga la dhex gelinayaa. DNA-ga wuu ka maaragtay xogaa yara culus yahay mRNA-ga. that's why marka uu u baahan yahay xamuul ahaan wuxuu u baahan yahay marka virus in la dhex geliyo. viruskaas ayaa marka waxaa lagu durayaa. viruska dabcan de waa virus oo I think actually virus laga keenay chimpanzee-ga inuu yahay. adenoviruska oo chimpanzee-ga maaha virus dadka cudur uu keenayo. sideedana badan waa ka bixinaya waxyaalaha cudurka. marka adenoviruskaas ayaa maaragtay DNA-giisa DNA-ga coronavirus laga soo qaaday ganti ayaa lagu maaragtay lagu beerayaa. sidoo kale marka viruskaas unuggii ayuu qabsanayaa, DNA-gii ayuu ku sii daynayaa unugga qofka bini'aadanka sidii mashiinkii bini'aadanka sidoo kale samaynaya. marka DNA-ga marka horeeto mRNA u noqonaa. mRNA-gii haddana la sii akhrina borotiinkii u keenaa. xogaa uu ka jid dheer yahay isaga. laakiin waxyaalaha lagu tiriyo faa'iido leeyahay waxa waaye maadaama DNA-ga uu RNA-ga ka culus yahay, stability-na uu ka leeyahay. hadoo kaleeto labadan oo mRNA-ga isticmaasho iyaga waxaa loo baahan yahay in lagu qaboojiyo -20 ilaa -70. laakiin kan DNA-ga asaga fridge-ka caadiga ah, fridge-ka caadiga ayaa ku filan. waxyaalaha marka faa'iidooyinka uu maaragtay
uu leeyahay waay marka technology-gan hadda ayaa la gaaray waana si sahlan ayaa lagu samayn karaa ayaana lagu produce garan karaa marka taas ayaa sahashay aan isleeyahay in maaragtay si dhaqsi ah loo sameeyo talaalkan okay marka waxaa u gudbaynaa su-aasheena kale oo na soo gaartay oo ah maxay ahayd talaalkan safe ma yahay waa iyadana su'aal meesha ku jirta runtii waxyaalaha marka la baarayo markii oo saan sheegay hadda habraaca la marayo waxyaalaha ugu muhiimsan oo la fiiriyo waxa waaye wax ma yihiin dadka wax u dhibayo mise waa wax maaragtay safe ah because waxa la raadinayo waxa caafimaad in laga helo in dadkii wax loo dhibo lama rabo marka saddexda stageba saas ayaa loo design karaya marka waxyaalaha hadda soo baxay marka waxa waaye in ay safe tahay oo la qaadan karo intii hadda la tijaabiyey wax dhib oo maaragtay la dhihi karo waa maaragtay aad ay u daran yihiin ma jiro mar ayaa waxaa jirta tan AstraZeneca laba qof oo maaragtay in ay reaction oo khayr alcaadiya inay ka bixiyeen laakiin haddana markii la dabaaray oo la dabagalay waxaa soo baxday in aysan la xiriirin talaalka oo wax kale aysan ahayd saas daraaddeedna procedureka wuxuu xayirnaa ilaa muddo laakiin waa in AstraZeneca ay dhacdo jadwalkeeda marka haddaan soo koobo waa safe way okay taas marka waxay noo gudbinaysaa su-aashan saddexaad maxaa dhibaatooyinka oo lagala kulmi karo talaalkan talaalkan dhibaatooyinka lagala kulmi karo waxa waaye talaal kasta dhibaatooyinka lagala kulmi karo kama duwana ilaa hadda inta la ogyahay maxaa waaye marka dhibaatooyinka talaalada badanaa lagala kulmi karo badanaa waxaa lagala kulmi karaa in qofka allergic reaction uu bixiyo oo xasaasiyad uu qofkii ku qaado talaalkii marka protocolada waxay sheegayaan qofka markii lagu duro talaalka in 15 minute la flow gareeyo oo lala socdo xaaladiisa haddii markaas allergic reaction uu bixiyo markaas lala tacaalo marka midda koowaad taas waa in qofka xasaasiyad uu ka qaado oo markaas muxuu ahaa dhibaato u keento midda labaad oo macnaha oo lala xiriiriyo waxa waaye waxyaalo iska caadi ah oo dhibaato badan aan runtii ahayn sida meesha laga turo kareeto in xanuun uu dhowr maalmood ama mararka qaarkood dhowr isbuuc xanuun uu ku hayo oo gacantii laga duray oo kaleeto uusan aad u isticmaali karin uusan u jiifan karin xogaa dhibaato noocaas ay ka imaado midda saddexaad waxa waaye in maadaama waxa lagu durayo ay wax virus ka yimid oo jirkii markii inuu xogaa uu bixiyo difaacii hore aan ka hadlaynay inuu activate gareeyo activation ku dhaco uu fal galo marka taasna waxay keenaysaa in qandho yar qofkii uu qabato in daal uu qofkii maaragtay dareemo in maaragtay madax xanuun uu qofkii dareemo intaas ayaa u badan inta badanna dhowr maalmood oo waxa laga hadlayo marka dhibaatooyinka ugu badan oo keeni karo intaas waay haddaa tusaale soo qaado aan week ka hor ma ahayd maxay ahayd anaa la talaalay anaa talaalka aaday marka waxaa waa meel emergency ka shaqeeya wax runtii aan dareemay haba yaraatee ma leh oo maxay ahayd waxyaabahan allergic reactionka la sheegaya xataa waxay xataa ima cuncunin marka maxay ahayd anaa tusaale ka ah maasha allah waxaa hadda subinaynaa su-aasheena kale u gudbaynaa oo ah okay maxay teho al waxay soo saartay jadwal oo ah sida loo kala horeynayo talaalada markaan talaalka markii la qaadanayo marka faahfaahin ma naga siin kartaa maxay jadwalkaas ay soo saartay teho al jadwalka hortareeto macnaha waxaa loo soo saaray ku salaysan yahay waxaa talaalkii talaal cusub uu yahay baahida talaalka loo qabo iyo
productionkiisa mise soo saaridiisii ayaan islahayn soo saaridii waa wax badanay ka dambeysaa iyo baahidii loo qabo marka waxaa marka ay dowladaha ku qasbanaadeen iyo hay'adaha caafimaadka in ay dadka kala siiyaan priority ay kala horumariyaan si loo kala daran yahay oo maadaama dadkii dhan hal mar aan la wada talaali karin sababo la xiriirto soo saarka iyo sababo la xiriirto logisticada oo maaragtay muxuu ahaa waddanka dhexdiisa aysan suurtagal marnaba ahayn in dadka dhan hal mar talaal wada siiyo marka jadwalka teho alle soo saartay taas ayuu ku salaysan yahay waxaa marka 3 gruuba ay u kala qaybiyeen 3 gruubna waxay sii kala leeyihiin gruubyo sii kala hooseeyo laakiin 3 gruub oo waaweyn haddaan aan wax ka sheego midda koowaad gruubka koowaad dabcan waxa waaye sida dadka adigoo kale oo ka shaqeeyo oo goobaha caafimaadka xirfadlayaasha caafimaadka oo la falgalo dadka maaragtay corona qabo dadka meelaha ka shaqeeyo emergency-ga meelaha critical care unit-yada ICU-da teho hoostayaasha ka shaqeeyo nurses-ka iyo dhaqaatiirta dadkaas ayaa ugu horeeyo dadkaasna waxaa la mid oo isla waqti la siinayo gruupka koowaad ku jiro dadka degan meelaha hoyta codidka mise van hosten codidka la dhaho oo u badan dabcan dadka duqooshinka marka dadka degan oo duqooshinka iyo shaqaalahooda gruupka koowaad iyagana ku jiraan markii gruupkaas koowaad marka laga soo tago gruupka labaad waxay noqonaysaa riskiga cudurka markuu ku dhaco riskiga weyn ku jiro ama da ahaan riskiga ugu jiraan ama cudurrada oo maaragtay ay la nool yihiin oo riski ahaan ugu jiro sida dadka kansarka qabo sida dadka maaragtay cudurrada wadnaha qabo cudurrada sokorta iyo wixii lamid cudurrada keliyaha iyo wixii lamid marka iyaga gruupka labaad iyagana waa lasii kala qaadi karaa waa lasii kala qaadaa dabcan gruupka saddexaad marka waa inta kale wixii soo hara waay markaas dadka intiisa kale waay waxaa mudan marka in la sheego dad aan la siin karin ma jira marka oo haba yaraatee macnaha mamnuuc ka sida hadda la sheegayo dabcan weli laguma tijaabinin ilmaha so ilmaha waa ka maqan yihiin waxaa kaleeto gruupka kaleeto oo muhiimka oo iyagana ka maqan waa hooyooyinka uurka leh ama nuujiyo iyaga waxa waaye maaragtay waa weli looma fasaxin talaalka macnaha rasul bara weli trial ka socdo weli waxa waaye fasax maysan helin weli marka processkii ayay ku jiraan maxay ahayd su-aasha ku xigta waxaa waaye horta talaalkan ma qasaba horta Finland wax qasab ma jiro qof walba wuxuu leeyahay xorriyadiisu leeyahay qof weyn hadduu yahay in uu asaga go'aan ka gaaro wixii ma qaadanaya mise ma qaadanayo waxyaalo yaryar aan ka ahayn macnaha haddii oo markaasna shuruuc ayaa jirta oo qofka markaas xorriyadiisa looga qaadayo wax lagu qasbi karo laakiin talaalka kama mid aha talaalka waa wax maaragtay shakhsiga go'aan ka gaari karo waxyaalo inay way fiican tahay inuu qofka qaato laakiin qasab haba yaraatee la isku qasbayo lagu dhahayo waa qasab inaad qaadatid ma jirto okay su'aal kale ka timaatay markii haddii talaalka la qaato ma loo baahan yahay in sidii awlka hore looga taxadaro maxay ahayd maskiga oo kale gacmaha iyo waxyaabaha kale sida awlka hore ma looga taxadaraya mise wax ma isbedelayo waa su'aal aad u fiican waay runtii dadka macnaha waxa laga yaabaa in ay isdhahaan mar haddaad talaal qaadatay waxa way bes waay waa dadka muxuu ahaa laga baxaya xirxirnaantii iyo kala fogaashihii iyo maaragtay laakiin saas ma ahan runtii macnaha ujeedada ugu dambeyso ujeedada oo targetka oo ka dambeysa dabcan saas waay in laga baxo xirxirnaantan laakiin goorma la gaaraa taasaa la isku hayaa isla markii la talaalo miyaa mise waqtiya u baahan tahay markii la talaalo horta horeeto saan sheegnay dadka horta lagama wada gaari karo oo in ummadda la wada fasaxo oo cudurkii la xadido oo cudurka faafidiisa uu joogo oo cudurka xanuunkii uu yaraado waxaa loo baahan yahay in
dadka immunity ama cudurka ku dhaco ama hala talaalo dadka 60% ilaa 70% 60 boqolkiiba ama 70 boqolkiiba inay immunity leeyihiin ama qof uu ku dhacay cudurkii oo aan hadda la ogeyn ilaa xad ku gaarsiisan yahay immunitygiisa adkeysigiisa ama qof la talaalay inay noqdaan dadkii marka waa fahmi kartaa in boqolkiiba 60 ama boqolkiiba 70 dadka ay yeeshaan waxa waaye waa maaragtay waqti ayay u baahan tahay hadda waxaa la sheegaa inta cudurka uu ku dhacay in ay maaragtay weli aad u yar yahay 10% xataa uusan gaarsiisnayn markii talaalku imaado dabcan waa kor u kacaya laakiin weli waxaa loo baahan yahay taxadarka in la wado weli waxaa loo baahan yahay in maskiga qofka uu qaato weli waxaa loo baahan yahay in maaragtay gacmaha la dhaqdo waxaa loo baahan yahay in social distancing la kala fogaado ilaa markaas laga gaarayo waqtigii oo 70% mise 60% bulshada laga talaalayo okay masha Allah maxay barnaamijkan waxa waaye waa soo gabagabeynaa marka su'aasha ugu dambaysa ku weydiina waxa waaye maxaa hadda ula talin lahayd dadweynaha ku daawanaya okay waa mahadsan tahay talooyinka horta runtii waa iska badan yihiin oo la xiriira corona waxyaalo badan waa ka soo hadalnay hadda waxa ugu muhiimsan oo aan dhihi karo inta aniga corona hadda aan ku dhex jirno dadkeenana aan la hadlayo bulshada Soomaaliyeed waxa waaye xogaa waxaa moodaa in aan xogaa u nugul leenahay waxyaalaha misinformation kala dhaho ama macnaha la faafiyo wararkan oo aan ku saleysnayn xaqiiqada aan ku saleysnayn marka talada horena waa uga hadlay talada ugu muhiimsan oo aan aniga dhihi lahaa waxa waaye waa fiican tahay waana sax in maaragtay wax aan sidee tahay toos loo qaadanin oo waxa laga shakiyo oo waxa su'aal laga keeno oo laga fiirsado laga taxadaro waa wax aad u fiican laakiin waxaan ku talin lahaa in informationka iyo talada laga qaato channelada saxda ah meelaha saxda ah in laga qaato oo la weydiiyo dadka maaragtay muxuu ahaa u cilmiga u leh dadka waxyaalahan ku dhex jiro ama laga akhriyo informationka laga qaato goobaha oo maaragtay saxda ah haddii laakiin misinformation badan waxyaalaha baraha bulshada la daba yaacayo iyo waxyaalahaas haddii ay badato hadhow waxaa imaanayso qaladaado badan inaan ku dhacdo oo dhibaato badan ay ka imaado marka talada ugu weyn oo aan aniga aan isdhihi lahaa waa ugu muhiimsan tahay waxa waaye waa sax in maaragtay criticism la bixiyo in maaragtay wax laga taxadar in su'aal la isweydiiyo ma xumo waa wax aad u fiican aqliga fiyoona saaxiib u ah laakiin meelaha saxda ah informationka ha laga doonto wixii oo maaragtay waxyaalahan la faafiyo oo ku dhisan in muxuu ahaa laga taxadaro oo sideedana aan loo qaadanin sida maaragtay informationkan kalaba oo ka imaanayo loo criticize gareeyo looga fikiro loo su'aalo tan misinformationkana sidaas oo kaleeto ha loo su'aalo marka kadibna muxuu ahaa balance ayaa imaanaya marka taladaas ayaan muxuu ahaa aan kusoo gabagabayn lahaa masha Allah aad iyo aad u mahadsan tahay Dr. Maxamed halkaa marka waxaa ku gabagabeynaa barnaamijkeena ka koobnaa oo ku saabsanaa talaalka coronavirus aad iyo aad u mahadsan tahay waa xaggaan ku dhameynaa masha Allah waa mahadsan tahay assalaamu calaykum